maxay ku beegan tahay maanta taariikh weyn oo ay sanadkan Soomaalidu ka mashquuleen waxaase xusid mudan dhanka kale in da'yarta Soomaaliya ee ka qayb galaya isreereebka tartanka 17 jirada bariga iyo bartamaha Afrika ay guul weyn gaareen waa warbixin gaar ah oo aanu ku eegayno 12 Oktoobar oo ay maanta ku beegan tahay taariikh ceenkee ah ay ku aasaasan tahay inta aynan guda galin warbixintan gaarka ah fadlan muuqaalka like sar adigoo la wadaagaya saaxiibada وهاجاك داود وهرينتي هدي إنه كبلا ونحول كتدوي تبنجرة الصومالية أي كغيب جلية إسرائيل كترتن كبرية برتمها أفريقيا زون كواد أمازون أيامان تقول تاريخ هو حي كجارين لجودة دلك يوغندا عيارت أي وقت عادي هيدو حي كسر إلا تبر بردع من جوله وحاسر جوريال تضبي سديد هجوش كقاتي دائرة الصومالية جوشن أي وحي تمت كجدال مركي دائرة الصومالية جول لوجهر مري qaybtii dhexe ciyaarta barbareeyeen waxaana rigoorayaal 7-8 ay kaga adkaadeen dhigooda Uganda dhanka kale kulan u dhaxeeyay xulalka Tanzania iyo South Sudan ayaa ku soo idlaaday barbardhac garabdhac ah waxaana rigoorayaal ku soo gudbay xulka South Sudan xulalka Soomaaliya iyo Koonfurta Sudan ayaa wada ciyaari doona kulan kala bax ah waxaana xulkii soo gudba uu u gudbi doona ama uu ka qayb gali doona tartanka da'yarta ee 17 jirada Sakafa kaasi oo la qaban doono sanadka 2023 marka laga yimaado guushan taariikhiga ah oo ay gaareen da'yarta Soomaaliya maanta oo kale 12 Oktoobar 1954 ay ahayd markii ugu horeysay ee la saaray calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya hase yeeshee calanka buluuga ah ee u eg samada xidigta shanta geesood ahna ku leh bartamaha waa calanka kaliya ee loo aqoonsaday Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya dalkeena waxaa soo maray 3 calan kuwaas oo kala ahaa calanka gumeystihii Talyaaniga iyo kan Ingiriiska oo jiray intii u dhaxaysay 1941 ilaa 1950 waxaana 1954 qaramada midoobay dalkeena ku wareejisay Talyaaniga si uu xornimo u gaarsiiyo iyadoo qaramada midoobay u magacawday 3 wadan oo dusha ka kontarolayay sida uu Talyaanigu u maamulayay dalkeena wadamadaas ayaa waxay kala yihiin Masar, Colombia iyo Philippines waxaana markaasi dalka ka jiray calanka Talyaaniga oo uu heliyo kan qaramada midoobay qorshahaasi xornimo gaarsiinta ahna waxa ka shaqeynayay xisbiga leegada haddaba isla sanadkaas 1954 waxaa loo baahday in la helo calan uu yeesho dalkeena mar haddii la helay nidaamkii xornimo gaarsiinta waxaa la soo bandhigay naqshado badan hase yeeshee isla sanadkaasi 12 bishii Oktoobar 1954 maanta oo kale Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan oo ka tirsanaa golaha dhexe ee xisbiga leegada ayaa jeebkiisa ka soo bixiyay calanka hadda jira ee buluuga ah oo ay Jamhuuriyadda Soomaaliya caanka ku tahay calanka buluuga ah ee xidigta shanta geesood la ku leh bartamaha ayaa waxa uu yahay midka caalamka oo dhan uu aqoonsan yahay Soomaaliya waana mid sharaf iyo maamuus ku leh qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah waxaana loo soo maray halgan adag oo dhiig badan ku daatay qiimaha ixtiraamka karaamada iyo jaceylka ay u qabaan ummadda Soomaaliyeed calankeena soo bandartii markii la garaaco muusiga astaanta u ah calanka dadka oo dhan waa ay sara kacaan iyaga oo taagnaada ilaa uu dhamaado muusiga astaanta u ah calanka Soomaaliya ma ahan wax qoraal ama warbixin gaar ah lagu soo koobi karo jaceylka iyo karaamada uu calankeena ku leeyahay qulubta muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin waa wax lagu farxo in xuska maalinta calanka ee sanadkan uu ku soo aaday iyadoo oo ay xulka 17 jirada Soomaaliya guul taariikhi ah ay ka gaareen dhigooda dalka Uganda waxaana ay u soo gudbeen kama dambaysta isreereebka tartanka Sakafa under 17 kaasi oo ay wajihi doonaan xulka South Sudan muwaadin maalintan gaarka ah ee calanka Soomaaliya maxay kugu asaysan tahay mase ka mid tahay dadka u dabaaldegay mase waxaad qayb ka tahay Soomaalida tirada badan ee maanta hilmaamay kadib guushii xulka Soomaaliya iyo sidoo kale arrimo gaar ah oo isbiirsaday haddii aad ka heshay warbixintan gaarka ah fadlan boggeena ku soo biir adiga oo follow iyo subscribe saaraya isla markaana muuqaalka like gareynaya lana wadaagaya saaxiibada mahadsanid